haddaa ku fikirayso inaad gurigaaga gado 2026ka waxba sameynin ilaa aa ogaato marketing maanta ku jirno maanta waxaan kala hadli doonaa marketing ku jirnaa ogaanaysa exactly waxaan kala doonaa especially home sales oo twin serieska waxaad ogaanaysaa maanta average sale price guriga waxa lagu kala iibsanayo waxaad ogaanaysaa guryaha active listing hadda suuq ku jiro iyo guryaha pendingka waxaad ogaanaysaa days on the market guryaha suuq intay ku daahayaan ogaanaysaa waxaad ogaanaysaa wax loo yaqaan showing per listing guriga inta jeer oo la arkay inta la iibsan ka hor waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan iyadana list to sold ratio oo guriga qiimaha lagu soo geliyay iyo qiimaha lagu iibsaday laakiin haddaan ugu cusub tahay magacayga waxa la daahir waxaan caawinay boqolaal Soomaali ah inay iibsadaan iska sii gadaan gurigooda استيرومانسور dadka degan hada ku fikirayso guriga iibsato ama guriga iska sii gado fadlan hal marka naga soo qabo ama waxaad u gareysan kartaa consultation the link is in my bio okay hadana bilaabo an average sales price oo twin series area saashada ka arkaysan average waa 467,332 hada dib u laabo 2025 dib u laabatan waa 451 254 so hada labada kala jirto roughly guriyaha waxay dadku sameeyaan average 16,078 This means like Ogow every city, every county isku mid maaha. So hadana aan aadno ka hadalno home sales guryaha hadda active ka suuqa ku jiro. Waa 2026 wax guryaha suuqa ku jiro waxa ka hadlaya waa metro ya waa 9,487. Hadda dib u laabato last year waa 8,976. Yeah, xoogaa kore u kaceen and the reason is the lot of new construction ba suuqa jira. So hadda ka hadalno guryaha pending hadda suuqa ka baxayo an average. So this means like guryaha 2026 waa 45,565 waa guryaha pending ah. Waana metro waxa ka hadlaya still like 2025 dan dib u laabano waa 45 to 11 waa sarkaysan and the reason probably then ben wihin there's a lot of ben wihin waxyin there's a lot of new construction why hadan ka hadalno guryahan average suuq intee ku daahayaan oo wax loo yaqaan days on the market this means like 23 days hadda ku jiraan guryaha suuqa last dib u laabatana waxay noqonaysaa 22 days hadan ka hadalno wax loo yaqaan showing per listing inta jeero guriga la arkayo inta la iibsan ka hor waxay qaadanaysaa 4.5 which is like 5 times ka dheh last year the same thing was 4.8 literally 4 to 5 times ku qaadanaysaa gurigaada in la arko hadana hore laga iibsanaya ogow xasuusnaa gurigaada condition ku xiran yahay ay ku xiran tahay location ku yaalo also see the low price garay guriga those three things dalka sax guriga generally suuqa kuma dahayo hadan ka hadalno wax loo yaqaano list to sold ratio list sold ratio gan waa guriga qiimaha lagu soo galiyay iyo qiimaha lagu iibsaday so hadda dib u laaban hadda literally 2024 literally 100% waha hadda ku jirno 2026 kana 100% way so this means hadda maanta guriga soo gelisa $400,000 waxa laga iibsanaya 400,000 ka laga iibsanaya ogow hadda waxaan ku sheegaya maaha gurigaada lagu iibsanaya oo lagu iibsanaya qiimaha kuma lihi gurigaada sidii strategy anaga isticmaal hadda isticmaashan most likely waa macquul galnay taa dhacdo isaan ka soo hadalnay gurigaada conditionkiisa ku xiran tahay location ku xiran tahay iyo price loo galay ku xiran tahay yes guriyaha waa la iibsanaya laakiin guriyahan hadda la iibsanayo oo si fast loo iibsanayo oo waliba qiimo fiican lagu iibsanayo oo waxay dadka siinayaan wax loo yaqaan clean terms oo loo qafiifinayo even conditionka lagu xiraayo shuruudaha lagu xiraayo sales hadda guryaha iibinayo strategy isticmaalay guriga inta soo list garan ka hor so most less dadka sellerka lacag kuma lose garayaan because of the market ku jirno waxa lacag ku lose garayaan gurigooda waxay soo list garayaan ay ka qorshaan haysanin haddii aad rabto inaad gurigaada ku iibso top dollars ku iibso waxaan dadka siinaa wax loo yaqaan sales strategy consultation waxaad ku ogaanaysaa that consultation dadka sameeyno waxa ogaanaysaa exactly and how much realistically gurigaada ku iibin karto qiimo price ay sheegaya iyo sida u soo jiidan lahayd serious buy soo jiidan lahayd iyo sida uga hortagi lahayd gurigaada inaad price soo jirto oo suuqa ku daaho so taasi saad u sameeyso waxaad booqsan kartaa consultation the links in my bio ka helisa haddii kale numberkayga halkan ka helisa وانا soo wactaa insha Allah hadii aad naga daawanayso TikTok fadlan iyo Reels na soo follow gareey hadaa naga daawanayso YouTube na fadlan subscribe na ugu qabo video noocan oo kale bulshada waxaan soo gudbinaa video noocan oo kale oo free wax ka faa'iideyso inta ka tagay assalaamu